Maxaa ka runa sheekada wariye Ridwan Isaaq? Wariyaha caanka ah ee Ridwan Isaaq ayaa sameeyay podcast uu ku wareystay Maama Khadra oo ku sugan magaalada Nairobi, taasoo sheegtay in saygeeda ay u leedahay uur 8 bilood ah. Uu ka faraxumeeyay laba gabdhood oo midda weyn ay u leedahay uur 3 bilood ah. Haddaba halkan waxaan idinkula wadaagi doonaa 6 hadal oo isburinaya oo ay Maama Khadra ku sheegtay wareysigeeda, kuwaas oo sheekadan ka dhigaya mid u muuqda khiyaali aan dhab ahayn. Afeef, sheekadan uma sameyn in aan ku duudsiyo xuquuqda Maama Khadra, balse waa baaritaan shakhsi ah oo ku saleysan ra'yi. Halkani waa muraayada bulshada. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay na soo raac, hana ilmaamin inaad muuqaalkan meel dheer gaarsiiso. Mahadsanid. Qodobka koowaad: guurka Maama Khadra iyo saygeeda. Wariyuhu waxa uu wareysi ka qaaday Maama Khadra 31 bishii Toddobaad 2026. Waxa ay sheegtay markaasi in ay saygeeda gabdhaha ka faraxumeeyay ay u leedahay uur 8 bilood ah. Waxayna wareysiga qaybteeda hore ay ku sheegtay in ay saygeeda isguursadeen 25 bishii 12aad ee sanadkan 2025, taasoo la macno ah in ay muddo 7 bilood ah ay wada joogeen. Halka ay sheegtay in ay uur 8 bilood u leedahay, waa laba arrin oo u baahan iswaafajin. Laga yaabaa in ay xisaabaadka ama isku darsashada muddooyinka ay wada joogeen ay ka khaldantay, balse waa mid ka mid ah meelaha uu ka bilaabanayo tuhunka la xiriira in sheekadani ay tahay mala awaal. Qodobka labaad: meesha saygeeda dugsiga uu ku dhigo. Maama Khadra waxay bilowgii wareysigeeda ku sheegtay in saygeeda meesha uu dugsiga ku dhigo iyo gurigeeda ay daris yihiin, balse haddana waxay isla wareysiga qaybtiisa dambe ku sheegtay in ay degan tahay xaafadda Section 10, halka saygeedana uu dugsiga ku dhigo xaafadda Section 4. Waana laba xaafadood oo aad u kala fog, waana laba arrimood oo isburinaya oo u baahan in Maama Khadra ay iswaafajiso. Qodobka saddexaad: xidhitaanka saygeeda. Waxay Maama Khadra wareysigeeda ku sheegtay in tacaddiga gabadheeda ay ogaadeen bishii Toddobaad ee isla sanadkan, waxayna sheegtay in booliisku ay saygeeda xidheen 7 bishii Toddobaad 2026, markaasoo ahayd markii ay ogaadeen. Waxaa mar la weydiiyay markii u dambeysay ee gabadheeda iyo saygeedu ay kulmeen, waxa ay sheegtay in ay ahayd maalin Jimco ah oo bishu ku beegnayd 26 bishii Toddobaad ee isla sanadkan 2026, taasoo ka dhigan in xadhigga saygeeda uu ka horreeyay markii u dambeysay ee ay kulmeen. Ikraan Yerisey oo ah gabadha ay dhashay ee uurka 3 bilood u leh. Qodobka afraad: kalsooni darrada wejiga Maama Khadra ka muuqata. Intiina wareysiga Maama Khadra si fiican oo deggan u daawatay, waxaa wejiga Maama Khadra ka muuqda in ay hadallada qaar meel fog ka keenayso oo mararka qaar ay taraaraxayso, balse wariyuhu uu saxayo. Waana arrin muujinaysa in ay u muuqato qof wax alifaya. Dadka aadka u yaqaana arrimaha dadka beenta sheega ama dembiilayaasha ah waxay sheegeen in qofka marka uu been sheegayo ay ku adkaanayso in uu erayada si fudud u xidhiidhiyo. Waana mid ka mid ah waxyaabaha wejiga laga akhrisan karay Maama Khadra. Qodobka shanaad: qarinta xogta eedeysanaha. Maama Khadra iyo wariye Ridwan Isaaq marna ma aysan baahin muuqaalka macalinka eedeysanaha, mana jirto wax caddeynaya in gebi ahaanba uu jiro wax lagu magacaabo Macalin Maxamed iyo in kale. Sidoo kale, Maama Khadra waxay sheegtay in ay tageen dugsiga uu gabdhaha ku faraxumeyn jiray saygeeda, oo ay sheegtay in ay ku rakibnayd kaamiro CC ah oo duubtay muuqaalka macalinka oo gabdhaheeda sii gelinayay mid ka mid ah qolalka madarasada. Haddaba, Maama Khadra iyo wariyuhu marna ma aysan baahin muuqaaladaas oo lama aysan wadaagin dadweynaha si ay caddayn ugu noqdaan. Qodobka lixaad: ka hadal la'aanta dowladda Kenya ee kiiskan. Ugu dambeyn, kiiskan oo ka dhacay gudaha waddanka Kenya oo ah waddan ku horumarsan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha, ayaysan jirin cid si toos ah uga hadashay, ha noqoto saxaafadda dalkaasi ama hay'adaha garsoorka oo ay gabadhu sheegtay in kiiskeeda ay geysay, taasoo caddeynaysa in warkani ilaa iyo hadda ku kooban yahay baraha bulshada Soomaalida oo aysan jirin meel kale oo dowladda Kenya ay uga hadashay ama arrintan lagu soo hadal qaaday. Ugu dambeyn, sheekadan oo maalmihii u dambeeyay si weyn baraha bulshada Soomaalidu ay u qaadaadhigayeen ayaa u muuqata kuwo ay ka soo laabanayaan su'aalo waaweyn oo u baahan in wariyaha iyo maamada uu wareystayba ay u bixiyaan jid.